farxad weyn ayay noo tahay annaga wasaarad ahaan iyo qaran ahaanba inay wadadani tahay wado insha Allah suurta gashay oo la bilaabayo xukuumad ahaanna ballanqaadkii la fuliyay marka intaasba waa farxad noo gaar ah anigoo ku hadlaya afka wasiirka oo maqan iyo kaygaba waxaan iyada oo horar kale loo daraasad loo sameeyay si loo ogaado badqabka deegaanka marka wadooyinka caynkaas oo kale ay marayaan haddana waxaan kalmad dardaaran u soo jeedin lahaa shirkadda dhisaysa inay ilaaliyaan deegaanka inay ilaaliyaan duurjoogta oo anagu shaqadayadu waa deegaanka iyo duurjoogta marka inay xayawaanka iyo xoolaha iyo dhirta iyo daaqa iyo dhulkaaba inay aad u ilaaliyaan aanay noqonayso mid aanu ku kor joogtayno ilaalinta deegaanka waxaan aad uga codsan lahaa inay yareeyaan jaridda dhirta inay aad u ilaaliyaan qashinka maareynta qashinka adag iyo ka dareerahaba inay si muhiima u gutaan shaqadoodii oo aanay noqonin waxay meesha kaga tagaan waxaan aad iyagana u dardaarayaa inay ilaaliyaan meelaha xooluhu marayaan marinbiyoodkooda iyo meelaha xoolaha iyo dadku labadaba marayaan badqabkii xooluhu iyo dadkiina dee waa muhiimo waa mid loo baahan yahay la ilaaliyo waxaan ugu dambeyntii farayaa inay marka ay dhammaynayaan waddada ama inta ay dhammeeyaanba in laga rabo inay dhulbeelis sameeyaan intii dhir ay jareen intoodii oo la beeray ayaanu insha Allah ka filaynaa waxay weyn bay tahay maanta inaan kasoo qayb galo saxeexa shirkaddii ku guulaysatay waddada Looyacaddo Boorama oo fayskeedii koowaad Looyacaddo Saylac maanta halkan lagu saxeexayo runtii baahi weyn baa loo qabay waddadan oo sida wasiirkii ugu horreeyay Cabdalle ka dhawaajiyay baahi weyn oo waddaa jirtay oo dadka deegaanku run ahaantiina mashruucani waxa uu wax ka bedelayaa qiyamka dadka ama bulshada ku nool oo jiha kale ayuu u jeedinayaa maanta oo horumareed ama ay muddo badan tiigsanayeen oo ay wadamada jaarkooda ama meelo badan oo dalka ka midiba haysteen wadooyinkaasi ayay maanta ku jeedinaysaa mashruucan wuxuu wax ka qayb qaadan doonaa isku soo dhawaanshaha bulshada macroeconomiska ama dhaqaalaha deegaanka halkaa ku nool wada noolaanshahooda kor u qaadidda wacyigooda wax fara badan buu wax ka tarayaa aad iyo aad baan mahad gaar ugu soo jeedinayaa wasaaraddii gaadiidka iyo jidadka maarayaha wadooyinka iyo bahdii ka shaqaysay BOQ-gaba ka shaqaysay dhalinyartaayda halkaa jooga rag iyo dumar baysu ku jira aad iyo aad baan ku mahadnaqaya shaqadii xoogga badnayd afartigiinii berihiinii oo taa maanta la arkayo sharaf weyn bay idiin tahay idin kaneen intaas oo dhan ay kasoo qayb gasho maanta horta halkan hadal badani kama furra farxad baa ka furan ilaahay idankii waxaan leenahay ilaahay waddadaana haynoo barakeeyo si khayr lana haynoogu dhammaato hana inoogu bilaabanto horta waa duco waayo waa nolol bilaabmaysa oo dadkeenna u bilaabmaysa oo taabanaysa wax kasta oo noloshu ka mid tahay hadday tahay caafimaad hadday tahay islaanta ku umusha halkaasee gaadhiguu u soconayey tusaale ahaan 5 saacadood dee waxa loogu tegayaa 15 daqiiqa laga yaaba yacni waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waa farxad maanta hawshaasi nin walba wixii kaga aadan iyo dadweynaheenna iyo dadkeenna nin walba waajibkiisa ah ka qabsado iyo soo dhoweynta haddaan beera ahaan ka hadlo wixii beere ee ay marayaan wixii mushkiladee idinka qabsado waxbaan idinkala xalinaya haddii alla yidhaah diyaarna waan idiinahay dadkeennuna iyagaa rababa oo halkaa ilaa waxayse anigu saylac baan mar maayar ka ahaan jiray waan garanayaa waxay tahay wakaa jirdana markii dambuu xildhibaan jirdana markii nalaga soo bedelay wuu jooga waxaan rajaynayaa inay nolosha dadkaasi isbedesho runta marka laga hadlo yacni waa dad meeshaasi noloshu siday ugu adag tahay aanad malayn karin waa cimilo kulul waa cimilo aan laysaga gayoon karayn waa cimilo aan gurma degdega qofka looga fidin karayn marka waxaan ku goobaabinayaa in arintaasi weelkeedii ilaahay inoo keenay inuu inoo barakeeyo aan bismillaysano iimaansano aan hareeraha ka wada joogno qof kastoo inaga midibo hareeraha ka joogo sida halkan loogu sheegay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay
mashruuca kan maanta lagu saxeexayo anigu si gaara ayuu runtii ii taabanaya. 4 bilood ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay labada gobol Saylac iyo Awdal oo ilaa 7 jeer isaga dabarjeer noqday. 7 jeer waxaan bedelay 2 baabuur oo markii aan wadanay fi saddexaad jidkaasi dhibaatada uu leeyahay Somaliland kale kuma arag. mar waa ciid oo baabuurtu galayso marna waa buur laga baxayo. xitaa dadka ganacsatada ah ee ka shaqaysta dhibaato doora runtii ayay ku qabaan. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay xukuumadda Somaliland oo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo madaxweyne ku-xigeenka Ambassador Maxamed Cali in la helay prioritieskii ugu wanaagsanaa wadda haddii Somaliland laga hirgelinayo. baahi badan waddooyinka waynu u qabnaa laakiin dadkaasi dad 100% u qaba ganacsato dadka deegaanka ah iyo dadka kale hawlaha ka fulinayaaba weeyaan. waxaan aad iyo aad u sheegayaa dadka deegaankaas degaan waa dad wacan inay soo dhoweeyaan la shaqeeyaan marti sooraan waayo dhibaato badan ayay ku qabeen. qof hadday adeegsa qariito hadday wax yari gaadhaan waxaa loola soo carintu soo socdo ayuu jidka ku dhimanayay. dareen gaara bay runtii ii leedahay. annaga waxaa nagu aadan horumarku waa nabadgelyada. waddadaasi nabadgelyo ayay ku dhismaysaa. annaguna waanu ballan qaadaynaa haddaanu ilaahna amniga gacan baanu siinaynaa mas-uuliyad doolan iska saaraynaa. marka hore waxaan balyaynayaa dhammaan kombaniyada ku guulaystay birkan amba kontaraagan oon aad ugu hambalyaynayo. anaan filayo inay shaqadooda si fiican u gudan doonaan. anaan filayo inay wasaaraddaasi ay xushay 3dii ugu wanaagsanaa marka loo eego boqolaalkii soo abaalgareeyey. aadna waad u mahadsantihiin dhammaan soo abaabushay dhalinyarada sharafta leh ee hawshan isku soo abaabushay, wasiirka, maareeyaha hawshan muddada dheer ka soo shaqaynay. aad iyo aad baan idinku ammaanayaa boroseska iyo qaabkaad soo gasheen oo aan muddo badan la socday iyo si aad uga soo howlgasheenba aad baad ugu ammaanantihiin. ammaantiinuna insha allah sida shaqadaa loo gutana way sii xoojin doontaa. runtii ka hadli maayo qiimaha u leeyahay waddadani dhulkeenna infrastructure laan baa haysa. waxyaabaha ugu daran ee inaan horumar dhulkeennu sameeyaan ugu wacan bay ka mid tahay. waa ogtahay waddankeena dhul badan oo khudrad leh oo barwaaqo leh oo buuraa ku yaalla oo aanad 10 cishana ku gaadhayn baa jirta. meelo waxaan tegay berigii kaambeynka babaayga kubad ka dhigtaan ciyaalku. innagana ka Ethiopia laynoo keenaa meelay soo maraan bay waayeen. marka waxa weeyaan infrastructure waa waxaynu ugu weyn aan u baahannahay. waddadii runtii muddo dheer laga soo shaqaynayo oo qiimo weyn u yeelanaysa ayay runtii noqonaysaa. aniga ahaan way fiican tahay kulley waddooyinka iyo isku xidhka dalalka isku xidhaya waxa qayb ka tahay horumarka iyo ixtiraafka Soomaaliland ee dunida ka helaysa qayb ka tahay. waxaan rajaynaynaa kuwa iyo kuwa kale oo tareenaa oo isku xidha wadamadaba inuu si degdeg ah u helno. aad iyo aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba. guul baan leeyahay Somaliland. waxaan u dhaqaaqnay waa horumar iyo dadkeena 35 sanadood samirka badan soo muujiyey inayna dib u noqonay hore u sii socdaan oo imika wixii ka dambeeya horumar lagu tallaabsado dhinac walba. runtii Somaliland oo dhan bay farxad u tahay. waa waddo halbowle ah. aan aaminsannahayna inay dhaqaalaha gobolka iyo waddankaba wax weyn kusoo kordhin doonto insha allah. isku xidhka regionka oo dhanna ay wax weyn mustaqbalka kusoo kordhin doonto. siyaasadda dowladdu waa in la xoojiyo isdhexgalka gobolka Somaliland iyo wadamada aynu jaarka nahayba hadday Djibouti tahay iyo hadday Ethiopia tahay. dhaqaale ahaan iyo sidii ay isku dhexgeli lahaayeen iyo sidii ay u kala faa'iideysan lahaayeen. waddooyinkuna qayb laxaad leh ayay ka mid yihiin. waxaan runtii farxad ah ballanqaad kale oo ka mid ah ballanqaadadii xisbiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka manifestada ku qornaa oo waddooyinka ah in maanta ilaahay inoo hirgeliyey oo halkan lagu saxiixi doono insha allah. waddooyin kale oo waaweynina ay iyaguna dhowaan soo socdaan haddii ilaahay idhaahdo.
marka shirkadana waa bogaadinayaa. kolley maanta waxaan halkan u joognaa waa wadadii Looya Cadde Saylac waa wejigeegii koowaad waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliland oo dhan dhammaanteedba. marka labaad waa guul soo hoyatay dadka deegaankaas. wadada baahiyo badan baa loo qabay, dadka deegaankuna dhibaatooyin badan bay ku qabeen. kolley hadal badani maanta ma yaallo, waxaan leeyahay dadka deegaanka fariinta aan halkan uga diraynaa guushii iyo wadadii la sugayayba way inoo soo dhammaadeen. hadduu alla idhaaho wakaa maanta gabagabadii halkan lagu saxeexayo. dadweynaha waxaan leeyahay uun alla ilaashada hadduu alla idhaaho horumarkaa inoo soo kordhay si nabadgelyahana shirkadda qaadatay qandaraaska ee dhisaysa loola shaqeeyaan leenahay. waan aad iyo aad baan u bogaadinayaa kulankan qiimaha badan. arrin la sugayey oo muddo dheer la saadaalinayey oo ahayd himiladii xisbiga wadani, himiladii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee ahayd in wadadaas ay hirgasho. ballanqaadkii ay ballan qaadeen xisbiga uu ku ballan qaaday musharaxa iyo madaxweyne ku-xigeenku markay ahaayeen musharax iyo musharax ku-xigeen ay ku ballan qaadeen ee ahayd in wadada la hirgeliyo ayaa farxad weyn runtii maanta ah in ay dhaqaaqday oo maanta bilowgeedii halkan maanta loogu gogol dhigay. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. waa wadadii saddexaad ee wado dheer ah ee intii xukuumaddu timi bilowdo hawsheedii bilowdo. wadooyinkuna waa kaabayaashii dhaqaalaha, waa horumarkii, waa horumar aad u weyn wadadan oo isku xidhaysa marra regionala marra inugu xidhaysa dal kale inugu xidhaysa oo ah runtii wado aad iyo aad u halbowlaa. wado dheer oo mashruuc runtii aad u weyna oo aan wado ka dheeri jirin marka laga reebo wadadii Ceergaabo. wadooyinka la fuliyey wadadii ugu dheerayd bay noqon doontaa marka laga yimaado wadada Ceergaabo. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, u bogaadinayaa, ugu faraxsanahay gaar ahaan shirkadaha Adcon iyo Hon, saddexda shirkadood ee qaarra supervise gareyn qaarra ay ka shaqeynayaan. dhammaantoodna waa bogaadinaynaa. waxaan leenahay Allah idinku guuleeyo. deegaankana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad si wanaagsan uga shaqeyn doontaan. deegaankuna wuu idin soo dhoweyn doonaa. dadkuna baahi badan bay u qabeen, waqti dheer bay sugayeen. waxaan si gaara u xusayaa waxaasoo horumara ay kambaniyada isaga yimi China iyo Korea meelaha kala duwan isaga yimaadeen ay ku yimaadeen waa nabadda. haddaan nabadi jirin horumar ma jiro, haddaan nabadi jirin nolol ma jirto. marka nabadda weeye iyo deganaanshaha. marka qof walba oo deegaankana wax leeyahay alla soo dhoweeyo, inaguna aynu nabadda ku tacabno. inta nabadda ka shaqaysay ee Cabdalla ugu horeeyana waa ku mahadsan yihiin. intii deegaanka joogtana wax leenahay insha allahu tacaala noloshiinni iyo horumarkiinni wuxuu ku xidhan yahay nabadgelyadiina. waa cid walbana way idin cid walbana waxay idin qaban, cid walbo waxba idinla qabsan markay nabad tahay. laakiinse meelaan nabadi jirin nololi ma jirto. insha allahu tacaala qof walba waxaan leenahay adiga ambassadora, qof walba adiga lagaa doonaya tacabkeedii iyo isbarbataageedii.